Tarbiyinta ubadka bulshada Soomaaliyeed ama bulsho walba waxaa haysta dhibaatooyinka ugu badan ay haysta waxaa ka mid ah in tarbiyada carruurta marka la tarbiyeenayo carruurtaasi ay halaabaan tarbiyadooda. Muuqaalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qaabka ugu fiican ee loo tarbiyeeyo awlaadda. Waxaan rajaynayaa qof walba oo muuqaalkani daawado maanta wixii ka dambeeyo in awlaadiisa ay sida ugu fiican tarbiyada u heli doonaan. Inta aan muuqaalka gudaha u galin waxaan ka codsanaynaa muuqaalkani inaad like garayso siina share garayso si uu u gaaro saaxiibo badan oo sidaada oo kale u wanaagsan. Waa muhiim awlaadaadu inay noqdaan awlaad tarbiyadoodu ay fiican tahay si bulshadu ay kaalin fiican uga qayb qaataan. Qodobadan aan idin xusi doono waa qodobo fududeyn doona in awlaadaadu ay noqdaan awlaad tarbiyadoodu ay wanaagsan tahay. Qodobka ugu horeeya, aabaha iyo hooyada hadda miyaan TV-ga marka ay maqlaan aadaanka ee ha aadaan salaada. Waxay ka dhigan tahay in ilmahoodana ay ku dayan doonaan ay ilaalin doonaan waqtiga salaada iyagana sidoo kale salaad ay aadi doonaan. Qodobka labaad, aabaha markuu guriga soo galayo albaabka soo garaaca ee idin weydiista ehelka guriga jooga ee ku soo gala assalaamu calaykum ama salaanta ee u dhoola cadeeya xaaskiisa iyo ilmihiisa marka uu soo galayo. Ilmihiisa waxay ka baran doonaan dhoola cadeynta iyo danqashada ama deganaashada marka guriga la soo galayo iyo salaanta isla socota. Qodobka saddexaad, aabaha iyo hooyada ixtiraam waalidkooda oo gacmaha ka dhunkada ayagana gacmahooda bay dhunkan doonaan ilmahooda wayna ku adeeci doonaan. Qodobka afraad, aabaha ku saacida xaaskiisa howlaha guriga oo ku kaalmeeya ilmihiisa waxay ka baranayaan iskaalmeyn iyo isku duubnida. Qodobka shanaad, hooyada xijaaban ee salaada iyo quraanka ku dadaasha gabadheeduna waxay noqonaysaa mid xijaaban oo sideeda oo kale ah. Qodobka lixaad, aabaha iyo hooyada isjecel ee isfahamsan ee aan ilmaha hortooda isku dagaalin codkooduna aanan kor u qaadin iskuna qaylin waxay ka dhigayaan awlaadooda kuwa isfahamsan oo jecel guriga mustaqbalkana waalidiintooda ayay ku dayan doonaan. Qodobka toddobaad, aabaha iyo hooyada xiriiriya ehelka iyo qaraabada oo wanaajiya awlaadooduna waxay ka baran doontaa qaraabo xiriirinta iyo baarinimada. Qodobka siddeedaad, aabaha la tashada xaaskiisa iyo awlaadiisa ixtiraama ra'yigooda oo jaanis u siiya in ay ra'yigooda cabiraan waxay ka baran doonaan ilmihiisa ka qayb qaadashada iyo ixtiraamka ra'yiga qofka kale oo aysan keligooda talis noqon. Qodobka sagaalaad, aabaha iyo hooyada runta badan oo aanan been u sheegin ilmahooda waxay baran doonaan ilmahaasi inay runta sheegaan. Aabaha iyo hooyada ballanta oofiya ilmahooda ballanta ay u galaan la oofiya ama u sameeya waxay ka ballan qaadaan ilmahaasi mustaqbalku waxay baran doonaan in ballantu ay tahay shay mar walba mudan in la oofiyo. Qodobka tobanaad, aabaha iyo hooyada nadaafadda ku dadaala wax walbana nidaam loo raaca sameeya waxay noqdaan ilmahooda kuwa jecel nadaafadda oo hagaajiya qolalkooda hurdada. Ha ka dalbanin ilmahaaga in ay sameeyaan wax aadan adigu samayn lahayn, hana ka reebin wax aad adigu samayso. Waxaan rajaynayaa in maanta wixii ka dambeeya guryo badan, qoysas badan iyo awlaad badanba ay heli doonaan tarbiyada ugu wanaagsan ilmahaasi tarbiyadooda haddii ay wanaagsanaatana waxaa wanaagsananaya mustaqbalkooda. In lagugu daydo waa habka ugu fudud ee aad ku tarbiyan karto ubadkaaga.